السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أنا قال صوتان وتي في قاسو مالك الستيفي فوي برتا أنا كل أنا يوتيوب كا وهرنتي برامج كاني وبرامج كفلاقين تسبورتي كا تطبات كي تكري تطبات كسر برامج كاني أو برامج حسالة أو أبغى برتين على إن أتكلم وتان تطبات والبع برامج كان وحنو كفلاقين دونا هريالا دا قارة يوروب يأكل ما هو حساب بدن كذا عي وفا جامبيون ليغا martida barnaamijkani waa cabdiqani JR oo fadhiyo dhankayga midig iyo Mr. Cilmi oo ku magac dheer Neymarka cusub. Haddii aan labada nin falaaqan yar oo gaaban idinka siiyo waa xirfadlayaal xagga sportiga ah oo ciyaaryahanno kubadda cagta aad ugu dheereeya. Marka aanu barnaamijkeena u gudo galno kulamadii ugu xiisaha badnaa ee UEFA Champions League ee toddobaadkan dhacay خاصة كلانكي لو دسوقي PSG iyo Real Madrid وهرين بل وحن كوبلاوي دونا dhankayga midig ciyaaryahan JR oo dhankayga midig fadhiya Mr. Cabdiqani bal hadii aan ku bilaawno kulamo xiiso badan ayaa dhacay toddobaadkii la soo dhaafay tusaale ahaan PSG iyo Real Madrid, Man City iyo Basel, Porto iyo Liverpool. maxaad bal ka dhihileed mucjisada PSG ku dhacday toddobaadkii la soo dhaafay? والله horta sidii uu ciyaarta lagu sugayay PSG Real Madrid marayna kamid ah sugayay oo xataa dadkii uu dharayno ciyaar xiiso badan ayad oo maadaama laba laacib saddex laacib kamid ah dunida Ronaldo iyo Messi Neymar laba kamid ah isku soo aadayeen oo dadka xataa ay filayeen laba mid kamid ah ciyaarta ka soo go'aanka ciyaartu qaadan karo oo gaari kara ciyaaryahankaas marka horta waan aniga PSG baan taageerayo laakiin wacdo raxan baan ugu dhacay marka gool baan ku hormarnay oo Rabiot uu dhaliyay ato hadee macallinkii cuniga ku soo safay maxalla Senso cuniga rumo dhaxda dilayo rigoor ku gal Toni Kroos Ronaldo ka bareejay hadda ciyaartii si uu socoto adiga labada koox wali isliidayaan ba sidaan wuxuu go'aan qaatay inuu ku soo tuuro Senso iyo Vasquez oo beel ka soo hormariyay marka ciyaartu caawin ka bedelay Senso ciyaartii goolka horna caawiyay goolka labaad marshan caawiyay saddex ciyaar sidii loo garaacay PSG waa runta ciyaaryahankaas Mr. Zidane oo ahaa ciyaaryahan aad caan u ahaa hadana ah ninka horkacaya kooxdaasi oo ah tababaraha kooxda Real Madrid. bal ciyaaryahankan Asensio uu xilliga dambe soo galshay يعني هير انت لك ايو كجوغا هذا ريال مدريد اما اسلاده قيمه انت لك maxay le markii ciyaarta soo gal wax weyn ayuu ka bedelay asasi horta ciyaar daayira oo sidaan filay waxay ku soo gataan 3 milyan kaliya oo malroka kooxda erkaad ka ciyaarta asasi markuu naadi ku soo biray goolka uu qodobna oo dhaliyo wuxuu ka dhaliyay sidaan filay oo Sevilla koobka Supercopa Hispania Real Madrid taageero badan Real Madrid uu soo jiitay sidaas uu ku sii socdo gool wuxuu kale leeyahay Juventus finaalkii Champions League Cardiff ka dhacay lagu garaacay Juventus 4-1 sidoo kale wuxuu gool la yaab leh kale leeyahay Barcelona guriga Camp Nou Supercopa dil ciyaariyay Spain sanadkan sidoo kale daqiiqadii ugu horeeyay markii la tagay Camp Nou lugta labaad Bernabeu la tagay goolka mucjis leh ayuu ka dhaliyay واو فوجت إندي بدنا تغيرش لهم مدريد حتى بحواق وصل المستقبل كأنك بدل رونالدو وياي مركز وحندي كرا وعياره مستقبل كلك بدعكته لكن ريال مدريد وعمره عم سيكرا وحماركته because عيارتي بناك كعيارهم بعد عيارتي هاي ما كان بعد حتى ورر وحجر شيء إن الدنيا نسبة تشتري لها ساد أسيق العك والله دي عشتان وعياره مستقبل كلك بدعكته لكن حاجة بقى إنه فرض كبحسن وما سنتها مثل جيار سيدا كل مثل علمي كلن كلن xiisa badan aad bay loo wada saadanay Neymar oo aan filayno in kooxda PSG ay u soo iibsatay maadaama aysan ku haminaysan inay Champions League hesho Champions League helin maxay isleedahay hadda ciyaaryahan Neymar ma qasaaro ayuu ku joogaa PSG hadii saa loo qaraacay oo saddex iyo maxaa la yiraahdaa iyo hal lagu kala baxay حاجة علده كأهد بيجي محاكو نعي مثلا أود كوين غبرات كوين أو كوح مالته جامبيونز ليج غبرات بلا أولى أيهاش والله horta
run ahaantii marka koobaad horta waa kaga mahad celinaa maadaama barnaamijkan iga ani kamid ahay dadka martida ku ah kamid ani saaxiibkii waxaa cabdiqani sidoo kale soo dhaweynaa run ahaantii marka haddaan usii galo kulankii hadda lasoo dhaafay PSG iyo Real Madrid horta kulli horta ani waxaan maleynaa meena ka daawanaynayo dee taageer Real Madrid aan ahay waa iga badis weliba habeenkaas aan PSG baan taageer Real Madrid aan meena ka daawan ciyaartan wada daawanaynin sidii hore loo sheegay bade goolka u horeeya PSG oo korontatay oo dee markaas dadabka ku socotay haddii ramood inay waa ka gacan sareyso Real Madrid adoo laakiin dee wax walba gadaal bay iska bedeleen oo dee kulankii wuxuu kusoo ilaa 3-1 runtii anu kulankaas markaan ka hadlo sidee qaabka ciyaarta maxaa bedelay ciyaartaas horta PSG markii Real Madrid kale isku ahada Champions League ahaanta waa aad u kala horeeyaan dee Real Madrid waa kooxda Champions League kan lagu tiriyay taawayada imaarada Champions League PSG iyaduna dabcan waxaana laakiin waa team markaan hadda soo kacay ciyaartoy fiican haysata laakiin aan khibrad u haysan Champions League iyo qaybgalkiisa soo marka waxaan dhihi karnaa waxa lagu badiyay PSG waxay ahayd khibrad Champions League in looga khibrad badan yahay marka waxaa leedahay maysan jirin awood ragga maaragtay ciyaarta ah oo loo awood badnaa maxaa yeelay ciyaarta wada qaybsanaysa oo daawanaynay waxaa lagu dilay khibrad wallahi marka liigaan isku fiiriso ciyaartoydu ciyaaraysa Real Madrid ciyaartoydu ciyaaraysa shaak PSG qiimo ahaan iyo tay ahaanba ciyaartoyda isku dhigmay ahaayeen inkastoo dee Real Madrid ciyaartoy waaweyn sidoo kale PSG waa team haddeertaan nin waxaas kale Nasser Khalifa oo wadan Carabka kusoo jeedo aad lacag badan haysta runtii aad u qarash gareeyay teamka markaad fiiriso dee Neymar oo kale lacag lagu soo iibsaday waad aragtay dee lacag waxay ahayd record oo dadkiiba qaado waayeen هذا مركز دي استيزد حالي هذا اللي أسوق بدي إن كستو دي ولي المنطقة نقول دي استيلا تبع سيرو كلا يدنا دي الغيا من نسبة الرعب حاسس تكون كي ورثوا دي برشلونة كده دي كده أي شيء بي اس جي وأفريقيا بتوصل ما تري بدينا وين كده عاي إن كاملو مركز كوبات عكس دي برضو ما نسكوها لا يكره أو دي بري أنا ما عندي أنت شايف عن هستا بري وحنا نقول أكيد عندك شيء تكبدلان مركز نقول جدك تيم كيلاد لكن مرك أنا في رنو إن كون كي خارجته يعتبر المدريد ولا هاي والله وحنا ركرنا ده كون كاسو ده سير خمني إنه كنا ماضي إن ده وحنا ده فيلم إنه بعد كسب الحين ده كنت طبعا وش ما بقولت مستر جي أنا يكون قلنا مستر العلمي كل يعني وصل لك نوع عندك الراني كان هو تاجر مدريديان لكن مركا عن عيارته سيدا صحدا كاينو هذا كان حكولته علد دي خبصتي بي اس جي محياس لهدا waxay lay qaybta ciyaarta hore marka la daawaday ciyaar adag oo si fiican loo qaybsanay ilaa ay ka dhamaan saxita hada maxaas leedahay yani adiga qalad ahaan yaa eeg saari kartaa ma gabrad ma hayso sida ninka sheegay mase ciyaarta looga awood badnaa oo waa laga laacib fiicnaa labo qodobka labada ku dina waxa way maxay leedahay kulanka dambe maxaa ka filay hadii mar gurigooda loogu imaanayo wallahi horti benta ma luglood baa dhiman lama saaray karo wixii soo lama oga aniga qaladku ugu weyn horta waxaan saarayaa macalinka PSG Unai Emery because meesha wax la ciyaari waa Champions League wuxuu u baahan khibrad aad u fara badan ka soo qaad shaxda uu ku soo galay wuxuu golaay soo dhigtay Ariola Dan Alves, Marquinhos, Kimpembe عنجر الله. أو تياسير فوق قدر دلي. قرب بعدين عنجر أصلا يوري الله يو إسبانيانا وقدر بكرسابا. قد كده كسوق عنجر أصلا عنجر الله كقولي توني كروز ألسانسو وعنجر. ماشي قبرتكم أنا ماشي. وحبان تدد هذا واحد ريال مدريد مالك كسار كده توني كروز لوكا مودريتش ودك كبد عقده كم إذا تنزل قدام بنص قادنا dadku fi caqad ka dhex marka cunga sir khibrad aad weyn ma laha asig macaan ku dulsamay sana Filatino cycle Rabiot oo Draxler saddex dhac soo dhigo oo Neymar Mbappe iyo Cavani oo uu og yahay Real Madrid ka jabanta horyaalka oo meel iska saari karo marka cungaas ku soo qaldan bis yarka tareega dheelmo inta kale hal ma hada tan waxa la dhigi karaa ciyaarta markuu Cavani bedelay macalinka sheeg PSG wuxuu chance u siiyay ciyaartoyda Real Madrid iyo Marcelo in uu noqdo weerar toos ah
maadaama dee marka hore difaacyada Real Madrid iyo aad ugu mashquulayeen saddexdan hadda lagu tilmaamay in yihiin weerarada ugu fiican Yurub Mbappe iyo Cavani iyo Neymar marka waxaa qaladka uu xataa galay waxaa la dhihi karaa macalinka PSG Cavani uu bixiyay wuxuu keenay difaac marka waxaad leedahay yani badalka uu sameeyey qalad ahaa waa sax marka dhankaas aa fiirso wuxuu keensaday Munia uu ka dalbaday Cavani inuu ciyaarta ka saaro Munia keensado wadanaafis garab ku diro because Real Madrid shaac waxay ugu soo talagalay Zidane maadaama ku maqan duwoodii Carvajal oo weerar tagi jiray iyo Marcelo oo Najo daafac dhaxa ah duwaagii marka wuxuu ugu talagalay in Najo uu dib u soo degto oo Modric uu buuxiyo booska Najo iyo Ferran iyo Ramos oo dhaqaqa booska Marcelo ciyaarta oo daawin qadka dhaxay wuxuu ka ciyaaray garabka hore Real Madrid Saturday waxay ka weerartay garabkii Marcelo ee ka socotay oo xataa Marcelo marka hore iska garabka saarna iyo Marcelo marna Benzema soo koriyo iska garabka la tagay marka saddex dhax bay noqdeen saddex dhax difaac wuxuu Najo dib u soo degay Ferran iyo Ramos marka wuxuu helay Marcelo space ku socdo marka wuxuu macalinka wuxuu ku fikir maadaama Marcelo uu soo dhaqaaqayo khibradan uu arkay daafacan dhexe oo Najo gudaha uu soo galayo mar walba soo galayo marka wuxuu isday u dir maxaa lahaa Marcelo hore u diray arkay macalinka Zidane una amri wuxuu ku fikir marka duwo kale inuu keeno oo danaafis caabiyo danaafis oo soo dirsay laba duwo u noqdaan laakiin khibradi baa xamaado ciyaartu way isbedeshay marka Zidane asina wuxuu meesha si ciyaarsiinay Casemiro oo lugtoora oo historialka oo daafac asin ka sameeyay dhaqan burburiya ah oo gudaha aan ka bixinba Ramos iyo dhex taagan oo kubadda qofka soo dhaaf dilaya marka afar difaac bay noqonayaan Marcelo wax lagu baahan yahay waa inuu was weerar aastaa oo kaliya Real Madrid waa shaqada ciyaartaba waxay Casemiro ciyaarsiiyaan burburiya waxay taabino taagnaado bastaas saddex difaac soo noqdaan oo Najo ku soo diray afar ay noqdeenba marka Marcelo ma wax lagu baahan waa inuu hor u dhaqaaqa kaliya garabkaas bidix oo qabsa hadda historialkii maxaa la markii qaaday alaab Afrika Champions League Real Madrid waxay saddex wuxuu ku dilaataa Madrid Carlo Ancelotti saddex hal garab wuxuu ciyaarsiinay waxa halkaas garab oo saarna Marcelo Di Maria Ronaldo waa saddex nin shaaf Alonso walax taagna Madrid baa dhaxalka la ciyaaray shaaf Alonso Madrid baa ku sharxay Di Maria Marcelo iyo Ronaldo gudaha buu soo galay Di Maria qofku uu wareeraya Di Maria buu ciyaaray Marcelo ciyaaray sansan buu soo kubadda la soo dhaaya oo ku jirtaan crossing marka dambe waa ku wareernay Madrid oo daqiiqadii ugu dambeeyay marka hal koor gool Ramos madax ka dhigay mooyaan inta kale garab Marcelo kiimad gool oo dhan okay kolkaas markaan ku sii laabano bedelada dee waxaan ahaantii laguna ammaanayo lagu faa'iideysan nidaam waxaa kamid ah go'aanada oo qaatay ee ah dee ciyaarta bedelka uu sameeyey markaas fiiris Casemiro kaleeto uu garoonka ka saaray dee bedelkaas kaleeto ma filayn runtii markaad aragto dee Casemiro sidoo muhiim u ahaa sanadii soo dhaafay Real Madrid wuxuu ahaa dee nin inta badan dee ahabateen ninka khadka dhex u maray sidoo kaleeto dee isku garoonka ka saaray oo ku dhigay inuu sansiya keeno runtii marka kulankaas wuxuu ahaa dee kulan taariikhi oo lagu xasuusan doono Zidane go'aanada uu qaadanayo markaad fiirid cadaadis badan uu saarnaa dee uu ku qasbanaa kulankaas in hadda markaan ku James Rodriguez maxaa filaysaa in kulanka tan ku dhamaan doono wallahi markaan dhageystay macallinkii PSG ciyaartoyda PSG horta aad bay kaga qeynayeen refliga waxay lahayd go'aan qaldan buu qaatay oo rigoor qalad baan ugu dhigay anaga rigoor baaliyan Ramos kubad gacanta kaga dhacday inama siinin iyo faawlada oo lagu socodsiiyay jaali iyo waxyaalo uu bixiyay una amrin wuxuu yiri waa sax macalinkan sin refliga buu eedeynaya sidoo kale marka waxaa la tegi doonaa guriga kale marka ciyaartoyda PSG waxay ku rajo weyn inay soo noqon karaan marka maadaama guriga la tagay laakiin anigu waxaan ka baqayaa Real Madrid waa koox aad ugu dheereysa counter attack hadda goor baan waa xasuustariya markay Champions League lagu Afrika Bayern Munich bay u baxayeen waxay ka galeen si daafac amal guriga Bayern Munich baa yimid waa afar ugu xiran afarta gool wuxuu ahaa counter attack oo kaliya waa xasuusta kubadda gool ku wali laga dhalinayay waxa qaldan kubadda ala Ribery Di Maria qabsay Di Maria wuxuu siiyay Benzema Belo si Ronaldo si sidoo kale ku waliyo saddex qof oo taabtay ninka ugu dambeeyay kubadda jiidin waxa Belo Ronaldo mu si jiido oo waliyo kaliya marka hadii PSG ciyaarta afar daafac waa si adag oo dhaxda si hadda ay ku soo noqoto ilmaha labada nin ku sheegay Yuri iyo iska bedelaan Asensio oo Draxler iyo Kursawa ay ku soo bedelaan
waa ay badi karaan oo waa dib usoo noqon karaan waa isle kubad wacan waa ciyaari karaan inkastoo Real Madrid la dhageysan karin oo daaficidaad u adag yahay marka haddii ay laakiin uu isdhaho gurigeeda baa joogtaa oo ciyaartooyda ay jarka iska ciyaarsiiso dee barin baa dhacaysa Real Madrid kontrata aad bay ugu dheeraysaa marka lama saadaalin karo inaa ku dhigmaayo lama saadaalin karo inkastoo kubad cagta maxay kula tahay wallahi horta kulankaas horta waxaan tegaynaa PSG gurigeeda taageero fara badana dabcan waxa waa imaanaya cadaadis badanna runtii waa saaran yahay dee macalinka ee sheeg PSG dee ciyaartooydan iyo lacagtan badan iyo wax loo geliyo waa inuu Champions League qaada marka dee cadaadiskaas horta way jirtaa macalinka PSG na dabcan dadaal badan uu saaraya sidii uu ku guuleysan lahaa kulankaas laakiin marka aad fiiriso tiimka u baxayaan ee Real Madrid ruuxaantii waa tiim dee aad khibradooda u sareyso markii la Champions League laga fiiriyo laakiin dee macalinkii Emre waxaa looga baahan yahay maalinta kulanka ku dambeysay Diego Silva joogo buu ka doorbiday ciyaaryahanka yar ee Francisca marka dabcan inuu shaxdii horeeto oo dib wax ka bedelo maantay dee kusoo galo shax ku dhisan qaab weerar maxaan ku dhahay dhex isku adigu qaab noocaas oo kale taa waxaan isleeyahay inuu natiijo fiican ku keeni karo tawadana weli halkaan nagala socota waan TV Somali Kids TV for you barnaamijkan waxaa idin daadahnay anigoo ah Dr. LB haddii aan weli hore usii saabaqano kulamadii lasoo dhaafay ee dhacay Man City iyo Basel Mr. Elmi adigaan ku weydiinaya maxay kula tahay Man City baryahan dambe waa koox dardar ku socoto horyaalka ka dhaca dalka England iyadoo unbeatable ah ayaa hal kulan la qabtay UEFA Champions League waa arkaysaa hadda kulankii ugu dambeeyay wacdada ay soo dhigtay Mr. Elmi haddii aan ku weydiiyo maxaa ka dhilad Man City oo ah koox aad u adag oo ay isku soo dhistay sanadkan weliba horyaalada England يعني دردر ku socota iyadoo unbeatable ah mar la qabtay maalin dhaw toddobaadkii soo dhaafay iyadana ciyaar la xiiso laba dhashay oo Basel iyo iyadoo wada ciyaareen natiijo aad u adag bay ugu soo badisay marka 4-0 wax la yeelsan karo oo maaragtay yar ma ahan haddii gurubyadii ka soo baxeen hadda ay usoo wareegeen wareegga tobanka dhanka codka maxay kula tahay maxaadna ka dhigi kartaa ciyaartii dhacday khibrad ahaan maxaa laga dheehan karaa iyo kulmada socda in yani ay dhici karaan runta horta liibaan marka aad fiiriso Manchester City sida ku socota xilli ciyaareedka waa ugu jirtaa qaab ciyaareed aan inaba dee xaqiiqin dabcan la rumaysan karin marka fiiriso horyaalka BL-ka Premier League Champions League marka fiiriso hatta koob kale hatta marka fiiriso waa naadiga hadda kaliya dee dhamaan dee ciyaaraysa koobka dhan ee Premier League ka inta sax Champions League marka fiirno kun dhiman dhawita Basel Africa Premier ku bidisay raantii oo waxa waa natiijo aad u fiican ah dhig kartay waxay dee si kusii dhawaatay inay u gudubtaan wareega xigaysta dhamaadka raantii intiimkan sidii ugu yimaada Pep Guardiola waa dee macallin dabcan in badan dee ka sayo oo aad ugu wanaagsan ciyaaraha France fiican ku socotaa marka fiiriso Pep Guardiola oo ah macallin maanta khibradiisa aad u sareyso the team aad u teamku isku xiray qaabkii badan u ciyaarayaan siday ku socdaan waxaan isleeyahay waa un teamka looga cabsanayo sanadkan inay ku guuleystaan Champions League natiijadii ku soo ilaatane waa natiijo ku soo dhaweynaysa inay usii gudbaan wareegga xiga ee sidii dhamaadka marka Manchester City hadii lama dhaysa ka sanadkan aad bay qiimo ku jirto ma la isdhihi karaa Man City sanadkan championka iyadaa balaba wallahi markaad fiiriso waa tiimku war u cadcadahay markaad fiiriso tiimku isku jira inkastoo dee aan hadda lagu aamin karin cidda qaadaysa Champions League laakiin marka aad fiiriso qaab ciyaareedka ay ku jirto sanadkan waa tiim runtii suuqa macnaheedu dhici karta in ku guuleysto koobkan waayo ciyaartooyda ay haysato sidii u leedaysa macalinka waa mahadsan tahay Cabdiqani Jiyaa kooxda Basel
in 5-0 looga badiyo maxay kula ahayd macnihi ma awood baa looga badiya islaadahay mise khibrad xumo sida ciyaartii hadda aan wallahi 4 bay dheeyaad ciyaarta oo Man City ay ku badisay Basel horta waa naadi iska yar oo ka dhisan dalkaas Switzerland marka taariikh go'aan lagu magaar karo inay Man City ay ku qaadayso Champions League laakiin Man City xaqiiqa inay u soo bixiso wareegga sidii damaadka Real Championka qaarada Europe marka horta lama dhigi karo Man City waa ay qaadaysaa Champions League maxaa yeelay sanadihii ugu dambeeyay waa la ogyahay kooxaha Ingiriiska inay aad kaga jiifto aalinba xataa waxaa ku darsataa oo 4 sano xiriir 3 sano xiriir Real wuxuu yaalay maxaa lahaa Championka Spain sidoo kale Europa League 3 sano xiriir wuxuu yaalay dalka Spain oo baabkii ugu dambeysay Manchester ay qaaday marka xataa waxaa loo saadaalinayaa oo saadaasha ugu badan noqonaysa hadii ay PSG harto inuu Real Champions League uu u noqonayo dalkaasi Spain oo ay Real Madrid qaadayso Real Madrid and Barcelona waa kana sidoo kale Tottenham iyo Juventus kulan barbardhaca oo aad adag bay dheereen صح maxaa naga dhigi kartaa islaskiisu faaqeen ahaan qaab noocee ay ciyaartaas u dhahay weli halkaan nagala socotaan waa TV-ga Somali Kids TV for you cameramanku waa DJ Hakim oo filimkan quruxda badan ee daawanaysan Dooya Mr. GR haddii aan ka faalon ciyaartii Juventus iyo Tottenham oo aan qaabkeeda hore loo arag oo ay 2-2 kusoo kala baxeen ciyaartaasi maxaa la dhihi karaa ciyaar adag bay ahayd baa la dhihi karaa mise waa caadi weyd ciyaar iska caadi ahayd wallahi sidaan filaynay ciyaar adag bay ahayd waana wada aragnay oo wada daawanay Tottenhamna waa koox aan la dhegeysan karin markaad daawato ciyaartooyda oo ciyaartooy quwada aad u leh kubadda aad u hay kara ciyaartu horta sidaan filaynay markuu ugu horeysay Juventus waxaa ku bilaabay goolka u bilaabay Higuain oo bacdi ugu horeysay ku dhuftay Tottenham qafal ma uusan filaynay haddana gool kale buu ka dhaliyo 9 daqiiqo marka ciyaartu socotay Higuain baa u labeeyay marka macalinkan Tottenham wuxuu ciyaartooyda siiyey inay soo noqon karaan oo rajo ah u geliyay marka hadda marka weerarkooda fiirsid waxaa hor wada ciyaaray Dele Alli Lamela Eriksen iyo Harry Kane dhaxal waxaa Juventus aad u diriyo lala yaabo kubad cajiib ah soo bandhigay Moussa Dembele oo ah nin oo Belgium ka soo dhashay oo badaxlaa wadana aad u xoog weyn ciyaartooyda Juventus waa iska dib marayba حتى وان دام ciyaarta Manchester iyo Arsenal iyo ciyaartooyda qadka dhexe baabaha buu ka dhigo waata kubadda iskaga dhaxwada marka waxa Juventus kala diraan dhig karnaa Moussa Dembele okay Mr. Emmy hadii aan ku diyo kooxda Tottenham sidoo ninka ka dhawaadiyo kooxda Juventus lama dhageysan karo sidoo kale waxaa record xilay oo ka soo dhex muuqday Buffon oo muddo aad weyn ku soo jiray xagga ciyaaraha waliba kulankii aan filay kulmadii ugu badnaa inuu soo saftay Harry Kane oo asalkiisu leeyay karin oo waxa jira championka ka dhaliyay 7 gool bal adiga maxaa ku sameeyay ciyaarta saameyn noocee ay leedahay wallahi kulankaas kulan aad loo isku yahay Juventus iyo Tottenham waxa kulan adag oo waxay laakiin natiijada ka soo baxdo uma leeyahay kara in noqday natiijadii markaas aan cid u saadaalay karin markaas fiiriso Juventus oo shati ciyaar ugu dambeysay uu guuleystay Serie A Tottenham oo markaas fiirtay aydan markaas kalma fiican ka soo gashay horyaalka laakiin Juventus markaas fiiriso dhanka khibrad iyo Champions League uga banto Tottenham maanta waxaan dhihi karaa Bruno adag ay dhashay waana team hadda markaan aan dhaysan karin sida Bruno u ciyaarayo sidoo kale baa Hakim ciyaartoy aad u fiican oo tayada aad u sareysay waqta marka natiijadu waxay tahay marka la yaab kale in laba gool laga hormaro Tottenham ay dib u soo noqdaan ay dal joogo Juventus ay dib u soo celiyaan ciyaarta maanta iyadoo la arki karo kubadda in sida waqcan sareysay Juventus iyadoo gurbiga joogo mid ka soo dhigay maanta waxay tahay natiijo Juventus طبعا aan aad dib weyn uga ah iyadoo gurbiga joogo gool ka dhaliyo raadii hadana la tagay Wembley oo England ah marka Juventus waa aad bay u aagtay inay
intay kasoo gudubtay Tottenham. marka hadda waxaa leedahay kulanka soo socda Juventus waa loo cabsadaa. aad baan ugu cabsadaa saas. waa mahadsantahay. haddii aan weli horey usii ambaqaano kulamadii dhacay toddobaadkan iyadoo aan soo wada koobi karin kulamaha aad u xiisa badan ayaa dhacay horelada Yurub, balse waxaan ku falaqeynaynaa keliya xilligan aan imika hadlayno oo aan barnaamijka qaybtiisa daba uga hadli doono kooxaha kale ee horyaalada Yurub. balse UEFA Champions League waxaa dheelay laftigeeda Sevilla iyo Porto. bal Sevilla iyo Porto maxaa leedahay? عفوا Porto iyo Liverpool عفوا Porto iyo Liverpool. maanta ciyaarta Porto iyo Liverpool waxay ahayd ciyaar maanta natiijo aan la filayn ku soo dhamaan marka fiirso Liverpool oo 5 euro soo badisay guriga Porto Liverpool ciyaartoyda bacdaraha waxaa ka mid ah 3 gool dhaliyay sidoo kale Firmino iyo Salah ay min hal gool ku dhaliyeen ku darsadeen taas oo muuqata in Liverpool wareegta dhamaadkii u sii gudubtay maanta marka ciyaartoydu runtii kulankaas waxaa kulan Liverpool si fiican ugu raaxaysatay runtii natiijaduna waxay u saacidaysay in Liverpool u sii gudubtay wareegga xiga. ma waxaad leedahay Liverpool inay natiijadan kusoo baxayso waa la saadaalin karin? lama runtii markaad fiiriso Porto oo gurigeedii la joogo markaad fiiriso Porto ciyaarta hadda horyaalka ma filan Portugiiskana Porto unbeaten iyo labada kulan lagama badin marka aad bay u adkeed in ay natiijadaas ay kala soo laabato Liverpool. marka runtii Liverpool nahaysa kala sanadkan markaad fiiriso weerarka aadka u halista ay haystaan Mane iyo Firmino iyo Salah runtii waa saddex nin isku taansan marka runtii waa idan Liverpool ma shaqeeyo runtii sanadkan هذا يوم مثلا حتى يوم كويتي مثلا JR كوحدة ليفربول حب عيارات كذا كل ما يقدم بيعرض على مصابين جالس مركب ولي بالأوفر صدا موه صالح يعيرنا أفكار كعيار كل هذا عجيب يصابين جالس اللي بس إذا كل هذا يقدم بموه صالح كل كورة يكلته كلها إنه عيارين أفريقيا وأفريقيا سوجيده والجامبيونز ليغا كذا اللي يقول هذا فربان ريكورد إن dadka qaarkood sida Drogba oo kale soo xireen inuu hada geegsado ku dhawaa xasan qaas kala Salah leedahay ciyaartiisa iyo kooxda Liverpool waxa uu hogaamin karo ilaa halkay geey kala leedahay. Liverpool waa koox caan ah ciyaartoyda Premier League qof walba uu yaqaano Mo Salah horta ciyaaraan nabaan caadiyeen oo soo jiita taageerayaal fara badan حتى معارض ليفربول وعدي كرنا إنه سوجيتي جول كوجودن بيوكل لي حتى إن محل FC بورتو جامس ليجا يقول كي بروح بند بريمير ليجا توتنهام لو يلعبوا كل ما تعرف توكل لي عندها كوجودن رقمي كسكاس بورت جيمي كراغا دافع ليفربول وراي جول كاس كلي وحرالي كرونا ميسي قفاني مر لك مركا مو صالح وانين عجيبة حتى صدم جول بو مرة ترتمى ليفربول ريال كان لما يلا تنقول ولي أديو ريال صار لا تنقول ولي حسب قوانين عيارمه وحكم دخلنا عيارمه أفريقيا كلمة ريال بريمير ليج كل شيء بن العيارات كان لي مركا مو صار عقابات عجيبة وكجرا مركا محلها نك أفريقيا كا هتنا عارف ديلي ليه صدم كلام دليل جول هذا فرق بدل مركي توتال كور لو حسابي أوريال يوروب يجامس ليجا حتى هاي إنه هيكسن كره حتى إنه نقض لاعبين تدون هو قالسن سير رونالدو يميتين كلته هرت ونوكرا يعرفوا كمدا عالم وقالسن لكن هرسنا وحلو قيمين كن عياريان كان وعد يقدر سنة قدام بناء كجفتهم والله حسنا لاتر سيتي عيارتوي سمر رياض مايس واو إذا عرضوا كل شيء حتى هيرو جارسي لاتر سيتي قد جنب يعني رياض بريمير ليج وعدري يقول لي مان سيتي جلسيا قولش يوقع علي ما يونايتد فرسمين كمان أو صبان دين وعرضنا يا مارس سامك مدة بمسي جوجي لاتر سيتي وعلوي يبسن العاب فربان تين ما ينسى عنا مارس البلاد ما وحده لاتر وعرين سيدي ورفقت وروحي وهيكلمين marka ma Salah haduu ku socdo markaan sanadka xiisaan oo kala sii noqdo way dhici kartaa in lacag fara badan lagu iibsado because waa ciyaaryahan xirfad la oo aad u cajiib ah gool badan dhali kara daafacyada dhibaateyn kara
dheereeya haddaa xasuusta goolkii uu Arsenal ka dhaliyo reerka bilowga kubaddu Bellerin ka daf Bellerin oo islaawa ciyaar Premier League ugu dheereeyay intuu ka ordayo goolay ka hortay oo ka dhaliyo marka Mo Salah qabaarad ajiib ku jira ma santahay Hamza Sheikh adiga qiimeynta laga qiimeynaysa ciyaaraha uu soo dheelay iyo ciyaaraha hadda u dhiman saameynta laga isku leeyahay horyaalka Europe ama European League haddii qaasatan aan ka hadalna xitaa horyaalada Premier League iyo FA Cup iyo runaantii horyaalada ka dheelay maanta qaada wadanka England kulmada u dheelay markaa fiiriso ciyaaraha uu soo dheelay kuwa dhiman saameyn caynkii ayuu ku leeyahay islada qaaradda Europe hadda runaantii horta Mohamed Salah waa ciyaaryahan Afrikaana muslim